magaalo Cusmaan ciidan baraka oo ku tirsan jaaliyada dalka Koonfur Afrika ana oo fadaw inaan ku dhiibada aragtida ka eedan marxaladda hadda dalka ku teeganta oo uu ogna dalka xaaladooshii aan hadii aan ku hadala aragtida oo ka eedan marxaladda dalka jira ana mayl qobe shirka golaha wada tashiga qaran taageersana waana raacsana sababtoo ah dalkun ma imbaahanya in la samatabi inii u doorasho eedo imbaahanya doorashada dartiye waxyaabo badan ah xiriiran dalka may ku jiraan abaari ku jiraan ilaahay waa ku roon yahay waxyaalo badan ku jiraan marka taas anoo sababayo ma arafaday in dalka doorasho eeda qaabkii doorasho ka eeda fadina macnaha la ka tala gala madaxda in horeyta ulahayaalka oo maamul goboleedyada iyo ulhayaga dawladda federaalka in horeey inay macnaha uu taageera warkaha qubahi ra'iisul wasaaraha dalka dawladda federaalka Soomaaliya ee dalka marka may laha shacabka Soomaaliyeed meelol biyo rogan dalka dibadda haan dalka roogi haan dibadda jiraanba in la taageera oo la wajaha qaabkii dalkun doorasho ka gala fadi shacabku oo gaajada iyo macluulka meelo kale ka dhamaado oo dalkan ka dhamaado abaarta baabi'iyo hoyta xoolo ku dhamaado walna aan haysana qaabkii la kasamata biifadi inay macnaha lagu talada waana la ka dadaala waana la inaska kooy marka may laha Soomaalida meelol biyo roogta aqoon-yahanada siyaasiyiinta indhaar garadka ulmaawdiinka dhalinyarada antaba hadii dalka ka noolaan hadii dibadda ka noolaan may laha dalkun in la samatabi yaan baahanye waana aayishii lagu talada insha Allah ilaahay idin shay hadii una jaaliyada ka nool ee dalka Koonfur Afrika may lana aragtidana ka eedan inay macnaha la taageera hadalka ha ku weeri ra'iisul wasaaraha dalka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble mayna siin la Soomaaliya meelo bisi roogtan Soomaaliya nolotay